maanta waxaan ka hadli doonaa ninka sameeyay geemka adduunka caanka ka noqotay ama ciyaarta adduunka ee PUBG. hadday tahay markii ugu horreysay soo boqoto kanaalka waxaan ka codsanayaa daawad inaad subscribe saarto sidoo kale muuqaalka aad like saarto. magaciisa waa Bander Green, wuxuu u dhashay waddanka Ireland. waxay kala tageen xaaskiisii hore oo guurka ka xumaaday. xaaskiisa waxay uga tagtay hal cunug. wuxuu bilaabay inuu iska korsado cunugtiisa yar isagoo ku jira da'da 30 jirka, kana shaqaystay xirfadaha fotografiga iyo DJga. isagoo aan wax shaqo ahayn oo iska fikiraya ayaa maalmaha ka mid ah ayuu yiri waddanka iskaga holeel oo adduunka mashruuc ama shaqo wanaagsan ka raadso. wuxuu u ambabaxay dalka Brazil isagoo ka tagay waddankiisa Ireland. isla markii uu tagay halka ayay isbarteen oo isjeclaadeen gabadh reer Brazil oo ku yiri halkan ayaan u soo wareegaya oo degaya kana shaqaysanaya waana ku guursanaya sida ayuuna ku guursatay shaqana ku helay. muddo kadib waxay sidii ahaadaanba maalmaha ka mid ah ayaa shaqadii laga eriyay. xaaskiisana waxay ku tiri maadaama aad waxba hayn shaqana hayn isma qaadi karno oo way ka tagtay. isagoo oo yaaban oo xataa lacag ku filan aan haysan ayuu dirqi kaga soo baxay waddanka Brazil isagoo ku soo laabtay waddankiisa Ireland. wuxuu go'aan ku gaadhay inaanu mar dambe guursan cunugtiisa yar ee uu dhalayna uu u shaqaysto oo maskaxda tuujiyo horumarna gaadho. lacag xoogaa markii uu rusaday oo uu fakiray oo uu daraasaday ciyaaraha geemiska ee la ciyaaro sida loo sameeyo baaritaan dheer kadib waxa uu dhoofay dalka Kooriyada Koonfureed. wuxuu la xiriiray shirkadda Polio Hall ee video geemiska samaysa wuxuuna u soo bandhigay fikirkiisa hal abuurnimada cusub ku jirto ee uu curiyay kuna saabsan ciyaaraha video geemiska wayna ka heleen sidana shaqo ayuu ku helay. kadib wuxuu ikhtiraacay oo uu sameeyay aasaasayna ciyaarta dunida caanka ka noqotay ee PUBG oo ay ciyaaraan dad dhan 600 oo milyan oo qof. dunida oo dhan 50 milyan oo kalena online ayay maalin walba ku ciyaaraan. yaase ka dhigay ciyaar iskoor jabisay heer ay gaadheen in dawladuhu iska xanibaan. ninkii lacagtii tigidhka diyaaradda lahaa maanta waa bilyaneer haysta 300 oo milyan oo dollar dunidana caan ka noqday. qisada Bander Green waxay ku tusaysaa sidii nolosha meelo kale aad dad ku fashilantid in meelo kale aad ka gaadhaysid guul fudud.